السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad asxaabtayda qaaliga ah channelka waa channelkiini waa channelka Fuusi Secret Recipes. maanta waxaan idin wadaa bariis qurux badan ayaa la dhahaa bariis biryani. qofkii yaqaanana wuu yaqaana waxyaabo badan aan ka bedelay ila daawo. qofka ku cusub yahay waxaan ku leeyahay wax badan aan ka maqan bariiska ila soo tijaabi sidoo ku soo baxa quruxdeena oo u jeedin processka u karinayana adinka ila arki doontiin. asxaabta cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada ku aan wali subscribe ka saar waxaan leeyahay maxaa sugaysiin saara. asxaabtayda hore u joogtana waxaan idin leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin. please waxaa hubsataa in gambalaalku ku furan yahay si video kasta kugu soo dhaco like tan ha ka iloobin hadduu ku cajibiyo videogeena. inta waxaan kusoo shubtay saliidda waxaa waa hadda aad jecesha bariiska inuu dufan yeesho u badso basalna waan kusoo daray cabaar isku soo shiilayaa. intan waxaan ku haystaa 1 kiilo oo digaag ah kadibna waxaan kusoo daray maraq digaag iyo paprika iyo xawaaji aan guri kusoo samaystay. paprikada waa rood waxa waaye barbarooniga budada ah guduudan. xawaashaadka isticmaalaya haddaad haysan muhiim ah wixii ku yaala isticmaal. digaaga hal saac camal meel dhigaya si dhadhan uu dhexda uga galo. intan waxaan ku haystaa basasha aan soo gaduudiyay. basasha markay ku gaduudtana waxay ka anfacaysaa inuu maaragtay suugada ku badato oo suugo badan oo culus ku noqoto. laakiin haddii aadan gaduudinin oo maaragtay aad cabaar shiilinin haddii aad cabaar shiilin basal un bay ahaanaysaa laakiin haddaa si fiican u gaduudiso suugada ku badanaysa suugo culus ay ku noqonaysaa. inta waxaan kusoo daray 2 qaado iyo bar camal oo ah yaanyada shiida yaanyada tomato paste ama yaan shiishiid waxa u taqaanidbo. waxaan kaloo ku shubay yaanyada caadiga ah oo soo shiitay ilaa yaanyo badan intii qoyskaadii ku xiran tahay. midda kale bariiskan waxaa fiican inuu suugo badan oo ku filan helo haddii kugu yaraato suugada qaleel ka noqonaa. marka yaanyada bariiska karsanaysa u qiyaas. kadib waxaan kusoo darsaday bilaw masala ama xawaashiga bariiska iyo barbarooniga budada ah oo guduudan. xawaajiyaadka isticmaala wixii ku yaala isticmaal qasam ah waxaan ku darsanaa inaa isticmaashid wixii aad ka hesho ama wixii guriga ku yaala isticmaali kartaa. yaanyadan biyo dhan ma ku karinaya ayada isku karinaya dabkana u gaabinaa. waxaan kusoo daray cusbo kadib dabkan u gaabinaa digsiga isticmaalaya digsi adag waaye. maraq digaagana ma ku daraay sababtoo ah haddii way iga gubanaysaa gadaalan uga dari doonaa maraq digaaga markay suugada si fiican ugu bislaato. inta waxaan kusoo shubay basasha si fiican aan usoo gaduudinayaa. laakiin processka dhan intay shiilmaysa haddaa intuusa waqti badan aan ka dhumaayo markaan ka bixinayo markaa ku shubayo la arki doontiin. saas inay noqotaa macaan badan haddaa rabti inuu bariiska dhadhan fiican kugu yeesho iyo kalar qurxan. haddaa degdeg u bixiso waxaa waaye qurux ma yeelanaysa maahan oo basasha weli waa iska cadaane. waxaan kaloo soo shiilanayaa baradhada cusbaan soo mariyay si fiican u soo guudinayaa. ayadana ma ila arki doontaan laakiin gadaalaa ka arki doontaan inuu bariis ku daraayo. asxaabtayda qaaliga ah ee cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada tiimka hore u joogana waxaan idin leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin. dadka cusub ee weli subscribe ka saarna waxaan leeyahay maxaad ka fiirinaysiin hee gambalaalka dhufta. sidoo kale haddii aad subscribe hore u saartay laakiin uusan gambaleel ku furnayn videogeena ma kusoo dhacay ma video markii gambaleel ku dhufo like-tana hanaga iloobin. marka suugadii weli way noo shiilmaysa waxaan kusoo daray tuun iyo sinjibiil shiidan ayaan kusoo daray. hadda dhadhan iyo caraf ay noo siinay maahano dabku u gaaban wax biyo dhanna ma ku darin ayada la ishiilayso. hadda qaaca in ka qariyay waxaan ku daray basbaas oo maaragtay sidiis oo tuminin oo 3 xabo ah kusoo ritay oo yaryariis ah. basbaaska waa adii idoo qaada haddii aad jeceshahay inay saaid u kulaatana waa ku darsan kartaa haddii aad rabin oo iska dhaafi kartaa. marka suugada markaan sayta u shiilay oo ilaa 1 saac ay karaysa kadib maraq digaag 1 xabo ah kusoo daray. waxaan maraq digaag gadaal uga daray waxay ahayd inay suugada iga gubanin oo saa aan rabo u shiisho. dabkan gaabin oo iga saaciday marka barbarooni aan kusoo darayaa iyo kabsar caleen. xawaashiyaadka iyo waxyaabaha aan ku daray dhan qasam ahaan step by step inaa u raacdid. muhiimaddu waxa waa yaanyo kugu filan inaa shiidatid inaa karsatid oo soo dalacatid. marka barbarooni iyo waxaan kusoo darsaday kabsar caleen way noo sii qurxinay carafna ugu yeelay maahano. weli kariskii uu ku socdaa waxaan soo digaagii 1 saac camal oo noo soo huursanay oo dhadhankii dhexda ka galay kadib birtaawada soo saartay. 1 qaad camal oo saliid adiga 1 qaadi bar camal saliid ah ku soo shubay kadibna cabaara inta ku dubayaa wuxuu ka caawinaa digaaga saa marka u dubtid inuu dhadhan fiican ku yeesho. haddii laakiin aad suugada ku dhex ridid asaga dhan wuxuu noqonaa maahano bacaq uu noqonaa waxa la dhaqay camal uu noqonaa dhadhanka ka baxaayo. marka adi sidaa jecesha u karso haddaa rabto suugada ku dhex karso laakiin ani saana gooni ugu soo qaleeyay. hol fudeys daarta laakiin isku dhex karsan kartaa. saa marka digaag u soo qaleeyo cabaar adi 6 daqiiqo camalna suugadii ku dhex dari doonaa oo weli noo shiilmayso. asxaabtayda qaaliga waxaan idin leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina. fadlan hadduu video ku cajabiyo ha iloobi inaad like saartid sidoo kalena subscribe aad saartid. iskana hubi inuu gambaleel ku furan yahay hadda waxaa laga yaabaa inuu videoyaashayda kusoo dhicinin adigoo maaragtay subscribe noo ah.
marka yaanyadii si fiican ugu shiilmaysa ayaa waxaa kusoo daray digaagii aan soo qaleynay kadibna waxaa waaye waxaan kusoo dari doonaa adinka ila arki doontiin yogurt aan kusoo dari doonaa oo plain ah taasoo maaragtay bariiskan uu qaas ku yahay haddii aad yogurt ka haysana waxaa isticmaali kartaa caano garoor oo dhanaan ah inkastoo ay midaana ka dhadhan macaan tahay marka yogurtkan isticmaalaya sokor ma lahan kalar ma lahan waa plain ama natural yogurt waxaa rabta u aqoon haddaa rabtana caano garoorka caadiga ah oo dhanaankaa waa ku bedelan kartaa waxaa kaloo isku hubisaa cusbada dhadhankeeda inay isku fadhisa iyo in kale iska hubi sababtoo ah dhowta bariiska dhadhan la-aan uu kaa noqonaya maahano caanaha waxaa laga yaabaa in cusbadii kaaga yareeyaan suugada marka haddii ay kugu yartaa cusbada u badso haddii aad cusbo badan jecelayn haddaba adi ii dooqaada marka waa kanaa wixii haddeertaa alaabtan cabaar isku soo hurinayna 5 daqiiqo camal weli dibkii u gaaban si caanaha ay suugada uga mid noqdaan oo dhadhanka caanaha uga bo'o cabaar yara soo hurinaynaa kadibna hawsha bariiska gali doonaa marka waa kanaa adi ilaa 5 daqiiqo camal aan soo hurinayay waa diyaar maahan oo hawsheeda tan geesaas ka sii dhigaynaa kadibna waxaan geli doonaa haddii ilaahay insha Allah hawshii bariiska iyo waxyaabihi kale oo dhadhamana marka bariiska waxaan sameynaynaa waa dhaqaysaa marka dhaqdidna 30 daqiiqo camal waxaa fiican inaad biyo la dhigtid caadi ah si fiican aad isaga dhaqdid kadibna biyaha dabka soo saara doonaa waxaan ku dari doonaa hayl iyo qorfe haddii aadan haysan muhiim ahan caraf yar lee siinayaan sidoo kale cusbaa kusoo shubay kadibna bariiska cabaar biyaha noola yaalay ayaan kusoo shubaya biyo waa kasoo miira waayo karaskay naga joojinayan maahano marka cabaaraan bariiska 80% camal aan karinayaa haddii uu bariiska kaa jilcana hadhowta bariis soorho kaa noqonaya oo isku dhedhegan hadduu zaa'id kaaga adkaadana bariis lugta taagayo dhadhan lahayn uu kaa noqonaya marka waxaa la rabaa inaad bariis qajaclo ka dhigtid oo gooska markii la saaro dhash dhahaya si marka huuriska hadhowta la huurinayana oo inta ka dhiman ugu dhammaystirmo maaragtay ciriinna uusan kaaga noqonin oo suugada ay isku filnaa weynin marka bariiska waa soo kariyey kadib biyihii aan kasoo miiray markaan biyihii kasoo miirana waa kana digsi weyn aan dabka soo saartay haddeertaan biryaanigaa samaysanaynaa waxaan sameynaa marka bariiska dabka waxaan kusoo shubaya digsi kula eg adi isticmaal bariiska isticmaalaysid ani waxaan isticmaalay 1 kiilo iyo bar bariis camal ah marka digsi weyn aan isticmaala oo haddana culus oo hadhowtii huurinayo dabool fiican leh bariiskii qaybaan ku shubay kadib suugo qiyaas fiican oo aan yareyn ayaa kusoo shubanayaa geeska geesaan gaarsiinaya haddii kale bariiska soo hadhowta qaleelo iga noqonaa maahan suugo kale korkama loogu cunaayo marka seetaan usoo gaarsiiyey bariiskii labaada haddana korka ka saari doonaa oo asagana qiyaas fiican ah maadaama bariiska aan aad loo karina ma baradno hadhowta markiisaan la iskugu daboolo haddana kari doonaa soo badan doonaa marka waxaan sameeyey basashii aan soo dubay oo maaragtay gaduudneed oo carfaysay ayaan bariiska waxaan sameynayaa korkaan kasoo saaray kadibna waxaan kasoo saari doonaa bardhadii ayadana aan shiilay oo si fiican aan usoo gaduudiyey marka bardhadan iyo maaragtay basasha aan isticmaalayo waa iska sheeno badsiya haddaadan ka gaarin ama aadan waqti u haynin ama aadan haynin intaba waa ka maarantaa laakiin haddaa haysato way kuu qurxine wayna kuu carfine dhadhanna ku sameyne sidoo kale haddaa ukun haysatidna ukunna waa samaysan kartaa gooni loogu cuno marka waxaan sameeyey suugadii intii hartay oo dhan aa kusoo shubayaa waana suugo badan waayo oo aan yareyn kadibna basashii qayb yaroo ka hartaa korka kasoo saaratay waxaan kaloo korka soo saari doonaa bariis yar oo aan badnayn oo aan reebtay si maaragtay uu iigu daboolo hawsha dhan maaragtay soo gabagabeeyey ma fahanti suugada hadday ugu koreyso nehmala maahano bariiskaana daboolayo kadibna waxaan isticmaalaynaa food color oo kalarka oranjiga ah haddaa sacfaraan haysatid isticmaal haddaa cagaar haysatid isticmaal haddaa jaalle haysatid isticmaal haddaadan haysana ma u baahnidbo waa sharaxaad leh marka kadibna aluminium foil aan kusoo daboolayaa aluminium foilka haddaadan haysan waa iska dhaafi kartaa dabool fiican dhakabku sii dabkan u gaabi kuna dabool 40 daqiiqo ilaa 30 daqiiqana u kaadi inta ka dhiman bariisku wuu kusoo bislaanayaa marka 30 daqiiqo ayuu noo daboolnaa bariiskeena weliba haddaa fursad haystid oo maaragtay degdeg kugu jirinin 40 daqiiqo uga dhigi kartaa dabkana meesha ugu hooseyso ayaan u geynay marka waa kana bariiskeenii 30 daqiiqo kadib saanu noogu soo baxay waa la isdhex gelinayaa bariiska dabaq oo ah maahano waa in albaabada la isugu furaa marka si fiican aan isku soo dhex gelinaynaa bariis furfur ah oo kaale iska araga ayuu noogu soo baxay haddaa tahay dadka saliidda jecel suugada saliidda u badso anaga saliidda iska ilaalinaya saliid badan ma kusoo darin maahano bariiskana saliid laguma karinin suugadana saliid yariisaa kusoo daray
dufan dhan waxaa ugu dhow dufankii digaaga ka baxay marka waa kana si fiican isugu soo walaaqay si qurux badan uu noogu soo baxay oo ujeedin kalarkiisa dhadhankiisana anaa inka hubo adinkana araggiisa iga hubtiin maahano asxaabteyda waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashada aan daawateen janaalkeena bariiskan challenge inooga dhiga bariiskan challenge hanoo ahaada waxaan rabaa inaad kasoo tuurtaan kadibna qaybta commentiska ay igu soo qortaan jawaabta kasoo baxda waa bariis aad u qurux badan aadna u macaan badan adinka iyo caruurtiina iyo faamiligiina dhammaantiina wuu idin cajibi doonaa insha allah iyo asxaabtiina waxaa idinkaga tagaaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciidul caafiya hore idinma soo dhihnin waana ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida ugu xirantihiin janaalka waxaan kaga sii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh